nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jira xadiid xasan culimmadu ay ku tilmaamayaan ducaa suuqa xadiidkan sheegaya waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka subaxi suuqa markuu gelayo yidhaahda laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir yidhaahda waxaa loo qoraa buu nabigu yidhi alfa xasana waxaa laga masaxaa alfa sayi'a alfiga ma taqaani luqada carbeed waxaan hadda milyuunka la yidhahdaa kuma jirin alf waa kun lagu dhuftay kun lagu dhuftay waa maxay waa 1 milyan hal duco oo sadar ka yarba haddaad akhrido kun dambina lagaa masaxaya waa 1 milyan oo dambina lagaa masaxaya 1 milyan oo ajarna aad leedahay laakiin waxay culimadu yidhaahdaan waa waqtul ghafla oo dadku ma haleelo dukaanka yaa rasaaq yaa fataaxdu bilaabaa hunguri uma bilaabma rabbiba dadku inta badan waa waqtiyada ilaabaan laakiin suuqa markaad galaysa haddaad ku bilowdo wuxuu nabigu tilmaamaya waxa kan awqaatil ghafla nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya cibaadada dadku ay la yimaadaan waqtul harj aw waqtul fitna waqtiga dilka iyo dhacaya boobka iyo dhibaatooyinku jiraan qofka cibaadaysta waa ka hijratin ilaya buu nabigu yidhi hijra aniga laysoo hijroodoo kale walhijratu tajubu maa qablaha haddii xadiidkii alislaam yajubu maa qablah hijraduna sidoo kale iyana waa tirtirtaa hijra nebi maxamed aad u haajirtay bay la mid tahay baa la leeyahy waqtiga fitanka iyo imtixaanku jiraan haddaad adigu cibaadada badsato bale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya salaad ba inay u fadli badan tahay marka faralka laga yimaado hal la tukado waa naasu niyaam dadku markay hurdaan haddaad adigu kacdo habeenkii markay dadku hurdaan haddaad adigu salaad u kacdo fariidada shanta kadib waa ta u fadli badan in la tukado idan waxaynu u baahanay dikriga iyo ducaaga iyo rabbi subxaanahu wa tacaala xasuustiisa inaynu in badan badinno oo in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhanno